magaalo kasta bilicdeedu waxay ku xidhan tahay dib u soo nooleynta rajada dhalinyarada haddii si isku mid ah la isaga kaashado dib u soo celinta bilicda dahabiga ee magaalo kasta dhammaanteen waxaynu noqon lahayn kuwo ku nool wadan bilicsan oo barwaaqo ah kuwani waa koox dhalinyaro ah oo iskooda soo abaabushay waana koox la magac baxday dankaab ma jirto hay'ad caawisa mana jirto xukuumad gacanta ku haysa balse wuxuu maankooda iyo damiirkooduba siiyey inay iyagu istiraan una tabaabushhaystaan sida ay u soo celin lahaayeen bilicda dahabiga ee magaalada Burco waa urur ay aasaasen dhalinyaro ka soo jeeda gobolka Togdheer isla mar ahaantan isku biiriyay fikir mid ah iyo waxqabad iyo ficil ay la yimaadeen waxaan soo marnay biriishka weyn ee magaalada Burco sidoo kale waxaan wax ka qabanay saldhigga dhexe ee magaalada Burco isna waanu runjiinay oo bilicsan soo celinay ururkani shaqooyinka uu qaban doono hadii Ilaahay ka dhigo waxa kamid ah waa dib u soo nooleynta bilicda magaalada meelaha waliba halbowlaha ayaan wax ka qabanaa hadii la barbar istaagana waxaan aaminsanahay inaan wax maanta shaqadan hayno iyo shaqo ka badan baan qaban doono insha Allah goobtan ay ku sugan yihiin waa biriishka lugta ee magaalada Burco kaasoo ay saaka ku sameeyeen dib u habeen ballaaran iyagoo soo celiyay bilicda iyo midabkii calanka Soomaaliland waxayna iskoodu soo iibsadeen agab kala duwan sida rinjiga la marinayo biriishka sidoo kale waxay baaqu direen dhalinyarada ku dhaqan gobolada Soomaaliland inay ku daydaan dhalinyaradan waxaana kamid ah hadaladoodii inaan kuma qabanaan xarig hayneen awood Ilaahay inta ma ka yimaado saaka waxaan noo socday barnaamijkiigan hore u soo bilownay oo aan ka bilownay dib soo celinta magaalada Burco taayid marka ka soo gudbo waxaan halkan baaq uga dirayaa guud ahaan dhalinyarada Soomaaliland gobolka si ay joogaan inay gacmo wada jir ku gooyaan in walba saxaabadiisu biyo ka dhirgaa inay guntiga dhiishas ka dhigaan tan inaga iska leh eelno ma qodna cidina ma maqna inaga cid aan hayn oo u maqna ma jirto ciidana dawladdu isku halay dawladdu weyn ma hadnaqaynaa waxay qabtaana waynu la qabanaysaa garab taaginaa maanta way ogtiin xaaladda ku sugantay wadankeenu bidix darrada ka muuqata waxa soo dhanna waa inaga dhaliil ina saaran marka waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada inay fadhiga ka kacaan waayo fadhiga faraha badan waxa jira wax la frustration ba ku dhacaya ugu yaraan wanaad wuxuu qabataa fikradan ururkan dhalinyarada isu tumay may ka dhalatay inay dalkooda wuxuu qabtaan oo ay wixii ay ku soo kordhin karaan ku kordhiyaan marka anigu waxaan baaq u dirayaa dhalinyarada gobolka Togdheer waxaan leeyahay war walaalow iska wuxuu qabso ayaan ku shaqeynaa maanta inaan ka sugna maaha dawlad ama dawladda hoose gobolka jirta inaan ka sugna wax maaha waa inagu hadeenan dalkeena wuxuu qaban aynan dalkeena dhisan yaa inoo dhisaya imaka Yurub dad baa dhistay dadka dhistayna waxay ku dhisteen gacmo wada jir bay wax ku gooyaan iska wax qabsay ku dhisteen marka waa inay inaguna aan gacmaha is qabsanaa dhamaantiin oo ka wada midaysan dhalinyarada Soomaaliland gobol kasta ay joogaanba haweeye dhalinyarada dhigay waxaan u dirayaa maanta hawshan aan wadno oo mashaariic maskaxdeeda ka soo duxday kuna dhalatay fikir annaga naga dhashay saad bilicda u soo celin kartaan maadaama ay halkan tahay caasimadii labaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan ka codsanaynaa qof walba oo maal iyo maskaxba nagu soo kordhinayo oo soo dhaweynaynaa waxaan adeegsanaa jilibkayga cid haba yaraatee maanta aan oran karno waxaas iyo waxaas ay noo qabatay haba yaraatee $1 ahaatee cidna u kordhisay ma jirto ururkani dankaab ayaa kaalin muhiim ah uga jira bulshada iyo dhalinyarada Soomaaliland kuwaasi oo ay ragaysay qabyaaladu oo Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco